halkan waa xanta wararka ku soo dhawaada warbixin iyo falanqeyn aanu barnaamijkan ku sameeyno kuna faaqidno waxyaabaha daaba doontaan waxa kamid ah daawadayaal saaxiibayaal faahfaahinno iyo xogo ka soo baxaya xubin sare oo ururkaasi al-shabaab ah oo lagu qabtay gudaha Muqdisho waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay sargaalkii sare ururkaasi al-shabaab ee lagu qabtay xindaabka gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho oo xogo dheeraad ay ka soo baxayaan lacago $100,000 Mareykanka ah oo ku jiray koontooyinkiisa iyo goobo kala duwan oo uu gelinayo madaxa waxaan soo gudbin doonaa tuunadii ugu dambeeyay baareysada socda warbixin ayaa ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa adduun weyn raali ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada inagu xiranow sidoo kale waxyaabaha aanu halka ku falanqeynayno kuna faaqidayno waxa kamid ah goobo ganacsi oo muhiim u ah Muqdisho ayaa amni xumo u xiran waxaan soo gudbin doonaa ganacsiyada isgoos muhiim ah sidoo kalena ku yaala xidda muhiim ah ayaa xiran waxaan soo gudbin doonaa warbixin aanu ku falanqeynayno kuna faaqidi doono xidhnaanshiyaha goobtaasi ganacsi ee muhiimka ah oo aanu halkan ku soo gudbin doono kuna falanqeyn doono sidoo kale waxyaabaha aanu halkan ku baahin doono waxa kamid ah daawadayaasha inagu xiranow weerarka Villa Race kadib Villa Soomaaliya halis ayay dareemayaan barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa hadduu la weyn raali ka noqdo qodobada iyo kuwa kale ayaa daaba doontaan soo dhawaada oo ku biira daawadayaasha inagu xiran si aad qayb uga noqotaan wararka iyo dhacdooyinka fadlan la garay oo shir garay daawade sidoo kalena qaybta hoose aragtidaada inoogu dhaaf iyo waxyaabaha ay kula tahay barnaamijkan inta aanu ku guda jirno ururkaasi al-shabaab sargaal sare oo ka tirsanaa ayaa lagu qabtay gudaha Muqdisho sida barnaamijyadeennii hore aanu ku baahinay haddaba ninkan la tuhunsan yahay oo iminka tuhunsana ah ayaa la sheegayaa inuu yahay mid baarisyo kala duwan ay ku socdaan oo weli markaasi baarisadaasi aan la soo gabagabenin nin la tuhunsan yahay inuu xubin sare ka yahay al-shabaab ayaa lagu qabtay gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho sida ay xaqiijiyeen saraakiil kala duwan oo dhanka ammaanka ah haddaba warar kala duwan ayaa ku soo baxaya goobta lagu qabtay faahfaahintu waxay xusaysaa in laga soo xiray meel u dhow hotelka Villa Race ee la weeraray tafaasiil kale waxay sheegaysaa in lagu qabtay control markaasi ku dhow madaxtooyada Soomaaliya isaga oo sidoo kale ka gudbaya hay'adaha ammaanka ee Soomaaliya ayaan weli war rasmi ah soo saarin maadaama weli baarisyadu ay socdaan balse ila wareejada kala duwan waxay cadeynayaan ama ay markaasi cadeeyeen in su'aalo lagu weydiinayo xabsi sida weyn loo ilaaliyo oo lagu magacaabo godka Jilcow halkaasi oo xarun u ah sirdoonka gobolka Banaadir macluumaadkan weli si dhab ah loo xaqiijin ayaa tilmaamaya in markii hore la geeyay xarunta hay'adda dambi baarista Soomaaliya ee booliiska ee CID-da balse ay ka soo saareen ciidamada madaxtooyada Soomaaliya halkaas oo ammaankiisa ay ku sugayaan godka Jilcow xogo kale waxay sheegaysaa in baaritaanka lagu sameeyay telefoonkiisa gacanta iyo xisaabaadkiisu ay muujinayaan inuu haysto lacag $100,000 Mareykanka ah iyo xiriiro uu la sameeyay mas'uuliyiin iyo ganacsato weli lama shaacin mas'uuliyiintaasi magacyadooda iyo si la mid ah ganacsatadaasi magacyadooda ilaa hadda si dhab ah looma oga inuu qayb ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii ugu dambeeyay Villa Race balse waxaa lagu ogaan doonaa baaritaanka ay hay'adaha ammaanku wadaan ayay sheegeen saraakiil wuxuu wataa dhowr aqoonsiyo oo idhikaarisyo taasi oo tuhunka si adkaynaysa saraakiil si dhow ula socota kiiskan oo magacyadooda uga gaabsaday xasaasiyadda kiiskan ayaa xaqiijiyay in aqoonsiyadu qaar ay yihiin xafiisyada ugu sareeya dalka isla markaana mid walba ugu qoran yahay magac gaar ah oo ka duwan midka kale taasi oo iyana kiiska markaasi wadooyin kala duwan u furaysa waxyaabaha la baarayo waxa kamid ah sida ugu suurta gashay la tuhunsanahan inuu dago guriga aagaasi muhiimka ku yaalo iyo haddii ay jirto cid damaanad ka ahayd ayuu xusay mid kamid ah saraakiisha kubaro hore uga soo shaqeysay laamaha ammaanka Soomaaliya ee hay'adda sirdoonka ayaa hore uga digay in caasimaddu ay soo galeen dagaalamayaal sarsare oo al-shabaab ah kadib markii lagu jabiyay furimaha dagaalka al-shabaab ayaa la rumaysan yahay inay si weyn uga dhex melantay hay'adaha amniga kala shaandheyn lagu sameynayo ayay falanqeeyaashu sheegaan waa dadka amniga falanqeeye inay tahay wadada kaliya lagu heli karo ammaan iyo xasilooni siday ka dhawaajiyeen si weyn ayaa loo qaadaa dhigay la tuhunsanahan la qabtay xilli sidoo kale sira kala duwan ay ka soo baxayaan ama laga helayo sargaalkaasi shabaabka ee la qabtay waxaana markaasi la sheegayaa in baaritaano markaasi ay ku socdaan
ilaa 7 ka mid ah ilaalada madaxweyne xasan sheekh maxamuud gaar ahaan qaybta miina baarista ayaa la xiray sida la sheegay inkastoo 5 xubnood la sii daayay 2 ka mid ahna lagu reebay xabsiga oo lagu haayo kadib markii tuhno ay soo galeen sabab la xiriira wada shaqeyn ay lahaayeen qofka eedeysanaha ah. xiriirka isgaarsiinta iyo xisaabaadka lacagta ninkan ayaa muujinaya kala wareejinta $100,000 sida ay xogo cadeynayaan iyadoo ciidanka koowaad ee ka shakiyay uu markaasi u sheegay warar isdhaafsiisan oo aysan markaasi shakiga ama tuhunka keenay. sidaasi oo kale qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ayaa baaris hoosaad lagu bilaabay taasi oo khubaro hay'adda nisaah ay gaareen. qaarkood ayaa la tuunsan yahay inay wada shaqeyn kala dhaxaysay ninkan isagoo markii koowaad baqirtay inay madaxda hay'adaha amnigu isgaranayaan. aqoonsiyada ninkan lagu qabtay ayay markaasi ku qoran yihiin magacyo kala duwan. magacyadaasi oo ilaa iminka la xaqiijiyay inay qayb ka ahayd Maxamed, Cabdulqaadir iyo Axmed waa 3 magac oo markaasi kala duwan oo tafaashiil kale ay si raacsan tahay ama magacyo kale kuwaasi oo wata abtarsiimo kala duwan. si kastoo xaaladda noqoto waa sida ay tibaaxayaan xogo markaasi aanu ka helayno dhanka laamaha ammaanka. waa hagaag daawadayaashii nagu xiranow haddaan arrimahaas intaa uga dhaqaaqnana waxaa la sheegayaa inay markaasi xiran yihiin goobo ganacsi oo muhiim u ah magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxaa xiran ayaa la leeyahay meheradaha iyo dukaamada ku yaala wadada u dhaxaysa isgoyska sayidka iyo dabka ee Muqdisho. ganacsatada ayaana ka cabanaya inay waayeen cid wax ka iibsata kadib markii ciidamada ammaanku ay xireen isu socodka gaadiidka wadada hormarta xarumahooda ganacsi. wadadan ayaa muddo ku dhow bil waxay ciidamada dawladdu ka celinayeen gaadiidka dadweynaha iyagoo aan sheegin sababta sidaasi loo sameeyay. ganacsatadu waxay sheegeen in meheradoodu ganacsi ay qarka u saaran yihiin inay xirmaan sababo la xiriira xirnaashiyaha wadada iyo iyadoo markaasi waayay cid wax ka iibsata maadaama meel loo soo maro aanay jirin. markasta oo qaraxyo iyo weerar ay ka dhacaan Muqdisho ciidamada ammaanku waxay xiraan wadooyin hor leh iyagoo markaasi sidaa u sameynaya amniga aawadi. laakiin taasi waxay samaysaa ganacsatada meheradaha ku haysta wadooyinka la xiro. ganacsiyada badan ayaana sidaa ku xirmay ama qarka u saaran inay xirmaan ka gadaal markii ay waayeen macaamiil u soo gudubta. Villa Somalia ayaan aadaynaa. weerarkii Villa Reis kadib Villa Somalia waxaa la sheegayaa in feejignaan badan ay ku jirto. weerarkii lagu qaaday Villa Reis waxay la mid tahay mid lagu qabtay xafiiska madaxweynaha ama lagu qaaday xafiiska madaxweynuhu maxaa yeelay labaduba waxay ku yaalaan goob isku dhow oo ammaankooda aad loo ilaaliyo. sidaas daraadeed kuwii galay Villa Reis waxba lama aha inay weeraraan guriga ama xafiiska madaxweynuhu ama ra'iisul wasaaraha. tan iyo markii ay Soomaaliya ka baxday ku meel gaarnimadii dibna u hanatay dawladnimadeedii waxaa lagu himiyeynayay in amnigu ay ka soo markaasi fiicnaanayo maadaama amnigu yahay furaha nolosha iyo horumarka. laakiin ma dhicin sababo kala duwan aawadood. waxaase ugu weyn taliyaasha lagu soo xulo hab qabiil ama xulafaysi. hay'adaha amnigu waxay heegan u yihiin sugidda amniga dadka iyo dalka shacab iyo mas'uulba. inta badan taliyaasha laguma soo xulo karti aqoon iyo aaminaad ee waxaa lagu soo doortaa in lagu qanciyo qabiil iyo inuu yahay nacamleeye ama markaasi qof u jabjaban qofkaasi. sidaas daraadeed sax ma aha in qabiil lagu saleeyo oo markaasi u adeegaan qabiil ama xulafo gooni ah sida lagu arkay dhaqanka wasiirada badankooda. 2 tuugadii iyo argagixisadii oo ku milantay hay'adihii amniga. dawladii ku malgaarka ahaa ee xildhibaanada waxaa laga cariri jiray qabiil kasta wuxuu u soo dirsan jiray midkooda ugu liita si uu biil uga helo. hadda waxay u muuqataa in ciidamadii ay ku soo bateen dad la shaqeeya argagixisada kooxaha abaabula dambiyada qorshaysan iyo ilmo dayro ah oo waalidkood dhaqan celis ugu soo dareen hay'adihii amniga. xaalku muxuu yahay haddaba? laba isma qabato. amni ayaan rabnaa iyo dhiiqadii iyo qaladaadkii aan inta badan toogash markaasi 10 sano ku celcelinaynaa wax ka bedeli mayno mana markaasi shaqeynayso. Soomaaliya waxay tiraahdaa tuug ma qabto. mudan xasan taliya tuuga tuug ku soo gaban maayo amni ku sugi maayo mid ku soo xushay inaad qabiil ku qanciso ama xulufaysi wax ku tari maayo horaa loo soo arkay. si kasta oo xaaladda noqoto daawadayaal waxay ahaataba caanadaatay dabadood la gabay ee mudana madaxweyne weli fursad baa haysataa ee dib u habeen dhab ah ugu samayn kartid hay'adaha amnigii caasimadda kii wadankaba waa liiqliiqmayaa ee qaado go'aan geesinimo leh si aad u qaadatay dagaalka ka dhanka qawaariista oo uu soo markaasi xul taliyaal leh karti daacadna ah kana fog qabiil
iyo eexsi ummaddan Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka dilootay loo samata bixiyo. Waxaa qoray qoraalkan faaladan oo aanu ka soo xiganay qaybtii u dambeysay ee Villa Soomaaliya iyo madaxweynuhu fariinta loogu dirayay Saciid Axmed Xaaji Carays oo ka faalooda arrimaha ammaanka. Aragtida markaasi qoraalkaasi iyo fariimaha ku gadaaman madaxweynuhu loo diray iyo xogta ku gadaaman waxay u gaartahay Saciid Axmed Xaaji Carays, mana ahan aragti ka turjumaysa nuxurka wararka. Inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan nabadiina saaxiibayaal daawadayaal.